maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray dagaal culus oo shalay ka dhacay koonfurta gobolka mudug kaasoo lagu laayay kooxda al-shabaab bayaan ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu shaaciyay in 75 xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka Qaaycad ee gobolka mudug warkan waxa lagu cadeeyay in weerarka ay qaadeen ciidanka xoogga dalka daraawiishta galmudug iyo xoogagga is-abaabulay ee deegaanka isla markaana deegaano badan laga xoreeyay al-shabaab sidoo kale galmudug ayaa xustay in kooxda la duqeeyay oo diyaaradaha dagaalka ay ka qayb qaateen duulaanka lagu qaaday kooxda isla markaana laga furtay hub iyo saanad military ciidamada huwanta ayaa horumar weyn ka sameeyay dagaalka lagu soo afjarayo qawaarijta ku dhumaalaysanaysa hawdka koonfureed ee gobolka mudug ayaa lagu yiri warkan xalay ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ugu dambeyntii galmudug ayaa saaxiibada caalamka uga mahadcelisay sida ay garabka ugu siiyeen dagaalkan khasaaraha badan lagu gaarsiiyay al-shabaab waxaa la soo bandhigay meydadka shabaab aad u badan oo lagu dilay Qaaycad ilaa Bacad weyn sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay al-shabaab ka xoreeyeen Qaaycad Bacad weyn iyo deegaano kale dhulkan oo hood ah ayaa la sheegay in kooxda al-shabaab ay ku leedahay dhufiisyo waaweyn taasoo suurtagal ka dhigtay inay ka sii dagaalamaan maalmo badan dhanka kale haddaan eegno warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalo iyo duqeymo xooggan oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kuwaasoo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba dagaaladan ayaa soo bilowday subaxnimadii Arbacada waxayna soo gaareen ilaa xalay wuxuuna dagaalka xooggiisa uu ka dhacay deegaanka Inji oo ku yaala xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wararka ayaa sheegaya in dagaalka markuu xoogaystay ay ku biireen diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqeeyay aagaga ay ka dagaalamayeen xubnaha al-shabaab wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in diyaaraduhu duqeeyeen goobo kale bartilmaameed ah oo ku yaala deegaanka Fiidow oo u dhow aaga lagu dagaalamay dhanka kale ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dib loo wareegay deegaanka Afcad oo shalay gudaha ay u galeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo ka soo talaabay dhanka webiga waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo lagu jabiyay al-shabaab sida uu shacab ka qaaday gudoomiyaha maamulka degmada Buulo Barde khasaaraha ka dhashay dagaaladan iyo duqeymaha weli ka socda Hiiraan ayaa sii kordhaya waxaana jira askar dhaawacyo ah oo la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana lagu soo waramayaa in deegaanada lagu dagaalamay ay gaareen ciidan kale oo gurmada taasi oo sii adkeynaysa xaaladda dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi weli ka socda duleedka degmada Jaalaqsi Hiiraan ayaa ka mid ah gobolada oo haatan ka socda howlgalka dib u xoreynta waana gobolkii ugu horeeyay ee ka bilowday kacdoonka lagu soo horjeedo al-shabaab